iyadoo la fulinayo go'aankii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ahaa in dhammaan madaxda sare ee dawladdu ay ka qayb qaataan bilicda caasimadda ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya way weeliyeen xubno ka tirsan baarlamaanka golaha wasiirada waxa uu hogaamiyay olaha nadaafadda ee dib u soo celinta bilicda magaalada Muqdisho oo maanta loo asteeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo ciidamada qalabka sida ayaa ugu horeyn waxay ka bilaabeen olaha nadaafadda xarunta madaxtooyada qaranka halkaas oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida ay shaqaalaha kala qayb qaadanayeen harista iyo xaqinta xarunta oo qayb ka mid ah uu yaalay qashin aad u fara badan wuxuuna ciidamada iyo shaqaalaha faray inay ka shaqeeyaan nadaafadda isla markaana ay hormuud u noqdaan horumarinta nadaafadda waddanka la doonayo in lagu sameeyo mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu wasiiro shaqaale kala duwan ee wasaaradaha dawladda kala qayb qaatay olaha nadaafadda oo ay maanta mas'uuliyiinta dawladdu horseed u ahaayeen si loo soo celiyo bilicda caasimadda Soomaaliya oo ah muraayadda laga eego waddankeena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay dadkii ka qayb qaadanayay olaha nadaafadda ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed guud ahaan looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan horumarinta nadaafadda dalka taa oo aysan jirin cid gacan ku sii karta shacabka Soomaaliyeed ee maanta ka qayb galay soo celinta bilicda magaalada Muqdisho waxaan mahad celinayaa wasiirada iyo shaqaalaha wasaaradaha kala duwan oo kulligood maanta u soo labistay xildhibaanada sanadada u soo labistay inay nadiifiyaan shaqaalaha wasaaradaha oo dhan maanta waxay ka shaqeynayaan shaqaalaha walba inay nadiifiyaan wasaaradahooda madaxtooyada shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska wasaaraha xafiiska madaxweynaha kulligood iyaguna waxay ka shaqeynayeen inay nadiifiyaan xafiisyadooda haddii aad aragtaan magaalada Muqdisho siday u taal dhammaan shacabka Soomaaliyeed way og yihiin inay ka jirto nadaafad darro aad u badan haddii annagu aan dalkeenna nadaafadiisa ka shaqeyn weyno cid nooga shaqeynaysa marka adduunyada kama sugi karno inay qashinka jidadkeenna yaalla naga qaadaan waa kuwan qaar ka mid ah xubnihii golaha wasiirada ee maanta ka qayb qaadanaya olaha nadaafadda ee dib u soo celinta bilicda caasimadda Soomaaliya Muqdisho kuwa oo sheegay inay diyaar u yihiin inay qayb weyn ka qaataan bilicda magaalada Muqdisho si dib loogu soo celin lahaa diinteena faraysana nadaafaddu ay tahay barka iimaamka marka arrin dawladda federaalka ay ku dhawaaqday iyo maamulka gobolka Banaadir ujeedada laga leeyahay ay tahay in caasimadda iyo magaalooyin kale dalka dhan ay noqdaan magaalooyin nadiif ah arrin aan aad u soo dhaweynayno inay maalin walba noqoto maalintii nadaafadda annaga waxaan joognaa hadda raadi Muqdisho agtiisa inaan maanta kala qayb galno shaqaalaha wasaaradda nadiifinta magaalada Muqdisho waxaan rajaynaynaa tallaabadan inay tahay tusaale wanaagsan mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dalka ayaa ugu baaqay dawlad goboleedyada maamulka gobolka Banaadir inay sameeyaan bil kasta maalinta Khamiista ee ugu dambaysa oo la nadaafado lagu hagaajinayo bilicda waddankeena si uu noqdo mid looga daysado bilicda iyo nadaafadda madaxda maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirada iyo mas'uuliyiinta kale ee dalka oo dhan waxaan ugu baaqayaa in khamiis walba oo ah khamiista bisha dhamaadkeeda ugu dambaysa in la isu soo baxo meel walba oo Soomaaliya ka mid ah oo aan ugu yeerno maalintii nadaafadda Soomaaliya hadii ilaahay sanad kasta maanta oo kale ayaa guud ahaan laga xusaa maalinta nadaafadda adduunka waxayna madaxdeenu qaateen sanadkan in guud ahaan dalkeena laga sameeyo oo la nadaafado oo lagu hagaajinayo bilicda dalka maadaama ay nadaafaddu tahay iimaanka barkeeda isla markaana meel iska dhigay munaasabadihii waaweynaa ee lagu xusi jiray maalintaasi Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho